malaaqyada dhalinyarada bahda saxaafadda waxaan idinku salaamaa salaanta islaamka waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka u sheego hal arin meesha aan taagannahay oo maanta aan shirka jiraa'id ku qabanayno waa meelihii ay bulshada reer Banaadir iskugu soo bixi jireen ee cabashadooda iyo oohintooda ay ku muujin jireen dadka ay ka ooyin jireen dadka dhibi jire dadka saxariirin jire dadka dhibaatada u keenay siba aniga aan idin la hadlaayo waxa laga yaabaa haddaanan gelin 10 mar inaan galay xabsiga dadkii igiliyay waa nimanka hadda jasiiro joogo waxa waaye waxaan nasiib xumo ah ayagoo aanan dalka xil u haynin oo buul ah oo aanan maamul goboleed ahayn oo aanan xataa degmo ama tuulo aanan haysanin inay hal hotel iskugu tagaan eriyoodan riyo ma taqaanaa ay dhahaan waxbaan sameeynaa iyo dhibaan geysanaynaa wax gacantooda ku jiraana ma jiro waxa waaye nimankaas waxaa la rabay sidii Muammar al-Qadaafi iyo Saddam Hussein dambiga ay dalka ka galeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay iska deesid maskiinnimada nimankaas xabsi dhigan ku dhila ummadda Soomaaliyeedna waa kugu qanacsan tahay wallaahi raaliyana ka yihiin waa la nacayo sanka laga haystaa waxaan kaloo rabaa inaan ayaga fariin u diro nimankaas halkaas fadhiyo war idinka markaad ka hadlaysiin kuraasta Banaadiriga iyo guddiga Banaadiriga musharax Banaadir ma idinkugu jiro maye waxa u barateen 20 sano wili dadka qaaska u quseenayo ee adabtarka culayska ku haayo kuraasta Banaadiriga waa Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo 20 sano ummadaas dulum iyo dhibaato iyo baaba u geystay 4 sano Xasan haystay intuu siyaasadda Shariif Xasan ku jiray Shariif Xasan jira ku dhaceyso haduusan kuraasta Banaadiriga kuraasta Jareerweyne kuraasta Raxanweyn haduusan asaga qaybanin waa dhimana ma qaybinaysid systemka dawladeed waa laga saaray waa lagu la dagaalamaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shacabka Banaadiriga iska daay shacabka Soomaaliyeed ku qanacsan waxaan kaloo iyo ra'iisul wasaaraha waxaan kaloo idin sheegaa waxay ku leeyihiin taliyaha Nisa Fahad Yaasin ha laga qaado xilka ilaaha idinku dhaarshay gobolka Banaadir maanta hal cunug ma lagu dilaa abnigeeda suu u fiican yahay arka waxay rabaan dhiigga ummadda Soomaaliyeed inay xalaalsadaan in la keeno nin wax matara ah oo la yiraahdo degme hebel shanaa lagu dilay degme hebel 10 lagu dilay nabadgelyada dhibayso beesha caalamkan waxaan u sheegaynaa hal arin nimankii aan ka dacwoon jirnay waa ogtiin warqadaha idin soo qoreynay waxaan ka dacwoon jirnay Xasan Sheekh Maxamuud Shariif Xasan Sheekh Aadan waa labada nin oo noogu daran oo tacdiyada noo geystay waxaan idin dhihi lahaa marka war ummadda Soomaaliyeed haddaad qarannimo dawladnimo dadnimo arabtaan nimankaas historygooda waa dhamaaday hadday sharaf iyo karaamo iyo sumcad ay leeyihiin Cabdiqaasim Salaad waa u jeedaan Masar uu joogaa ixtiraamka iyo sharafta iyo Soomaalinimada ku jirto laakiin waa niman aanan xishoonaynin karaamo lahayn ummadda Soomaaliyeed dawladnimada waa shacabkana waxaan ka codsanayaa inay difaacdaan dalkooda dhammaan ummadda Soomaaliyeed waan salaamayaa halkan waxaan ka salaamayaa wariyaalka madaxa bannaan iyo kuwa oo maartay dawladda ka tirsan oo dhan sida xaqiiqada ay tahay maanta magacayga waxa leedahay Malaaq Muriidi Malaaq Maxamed Malaaq Abuukar waxaan ka tirsanahay beelweynta Banaadiriga anigoo codkooda ku hadlay waxaan aad iyo aad aan ugu xumahay shirkii oo jasiiro lagu yeeshtay dadka ku yeeshay oo dhan waa dad ummadda Soomaaliyeed masiirkeeda aan ka fikiraynin oo masiirka Soomaaliyeed aan mathalaynin oo dana gaar ahaaneed iyo dana shakhsiyadeed wataan taasi haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed ee ka tirsan beelweynta Banaadiriga waa cambaaraynaa waana ka soo horjeednaa anaga waxaan u taaganahay mar walba midnimada ummadda Soomaaliyeed wadajirka ummadda Soomaaliyeed in macnaa Soomaali ay midowdo mar walbana haween iyo maalin waa u taaganahay cid oo looga aabayeelayna male cidna ma ugu jixin kuwa rabaan
in qarannimada Soomaaliyeed ay dumiyaan ay baabi'iyaan waan ka soo horjeednaa marna ma ka ogolaanayno waayo calankan Soomaaliyeed waa loo soo tiil iyo tacabeelay rag baa dhiigooda maskaxdooda muruqooda dhiigooda hantidooda baabi'iyay ay ka mid yihiin qowmiyadda Banaadirga oo dhan qowmiyadda Banaadirga waa dawladda wax ixtiraafsan tahay waana taageersan tahay dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wixii ka soo horjeedan waan ka soo horjeednaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.